jimco wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadkan sheekada ugu la yaabka badneed ee toddobaadkan warbaahintu ay qortay. Tuulo la weysanaa muddo 10 sanadood ahayd ayaa haatan dib loo helay. Howlo dayactir ahayd oo ka socday meel loo dalxiis tago oo ku taala dalka Talyaaniga ayaa waxaa lagu helay haraadiga tuulo ay biyaha hoostooda ku luntay 10 sano ka hor. Harada Rosia oo ku taala dhinaca waqooyiga ee dalkaasi ayaa waxay caan ay ku ahayd minaaradda kaniisad ka soo dhex muuqata biyaha barafka ah. Goobtan taariikhiga ahayd ayaa xitaa dhiirigelin u noqotay in buug laga qoro iyo in shirkadda lagu magacaabo Netflix ay ka sameyso filim musalsal oo muddo soconaya. Laakiin xilli ay hadda ay harada ay si kumeel gaar ah ay u qalalsan tahay, dadka deegaanka ayaa waxay fursad u heleen in ay arkaan raadadkii ugu dambeeyay ee tuulada Koran. Tuulada bari waxa ay ku noolaan jiray boqolaal qof oo ay hoydo u ahayd, laakiinse waxa ay ku quustay barafka ka dhacay sanadkii 1950 tuuladaasi oo la degay, waxaana ay gabi ahaanba ay isku bedeshay meel ay biyaha ay ka koreeyaan. Harada Rosia amaba Residency oo laga yaqaan Jarmalka waxa ay ku taalaa gobolka koonfureed ee lagu magacaabo Tyrol ee dalka Talyaaniga, kaasi oo xuduud la wadaaga dalalka Austria iyo Switzerland. Waa sheekadii ugu adkeeda oo laga qoro ee gobolkaasi, taasi oo noqonaysa mid la yaab leh. Haradan muddo sanado ah lama arkin, biyaha ayayna ka hooseysay. Bal adigu sidaad u aragtaa in meel dhan oo la deganay biyo ay quusiyaan oo la arki waayaba? Sheekada kale ee la yaabka ee toddobaadkan aan idin soo gudbinaynana waxay tahay la yaab ayay noqotay markii wiil uu ku sigtay in uu la aqal galo gabadh walaashiis ahayd, iyadoo oo hooyadiisii ay ogaatay arrintaasi. haweeney ka qayb galaysay xaflad meher wiilkeeda ayaa waxa ay madasha ay kala tagtay baa la yiri ilmo qoysay kadib markii ay ogaatay in caruusada ay tahay gabadheedii oo waa hore ka luntay. dhacdadani waxay ka dhacday dalka Shiinaha, gobolka Jiangsu. hooyada markii ay timid goobta waxa ay fiirisay gabadha, waxaana ay ula ekaatay gabadhii ka maqnayd. si shakigaas ay uga baxdo, waalidkii soo koriyay ayaa ay weydiisay in ay gabadha dhaleen iyo inay soo korsadeen oo kaliya. qoyska gabadha oo la yaabay su'aasha waxay sheegeen in ay sanado ka hor ay wadada dhinaceeda ay ka heleen, kadibna gabadhoodii oo kale ay ka dhigteen gabadha oo ay soo korsadeen. markii aroosadu ay maqashay sheekada, ilin ayaa ka timid, waxaana ay doonaysay in ay wax badan ay ka ogaato waalidkeeda. waxa ay sheegtay in ay la kulantay hooyadeedii oo ay uga farxad badan tahay maalinteeda, waxaana ay bilowday weji kale. aroosadu waxa ay ka warwarsaneed guurka walaalkeeda ka weyn, balse hooyada ayaa sheegtay in caruuskuba ay soo korsatay oo kaliya. waa la yaab kale oo meesha ka soo baxay. haweeneydan waxa ay sheegtay in wiilkeeda ay soo korsatay kadib markii ay lumisay dhammaan rajooyinkeedii dib u helitaanka gabadheeda oo ay rajaynaysay in ay sanado badan kadib ay dib u heli doonto. waxaana intaas ay ku dartay in guurka lamaanahan aysan dhibaato aysan ku imaanaynin sababta ah wiilka iyaduba waa ay soo korsatay. waxay noqon doontaa la yaab kale kasii dhexdhashay, maadaama hooyadan aysan wiil ka dhalanin balse gabadheedii ay dhumisay oo ay wiilkan si raja ay korsanaysay. waxaa dhacday inay wiilkan soo korsatay kadibna gabadheedii cid kale ay soo korsatay, dibna ay isku helaan labada lamaane. marka sheekadaasi la yaabka ahayd toddobaadkan taasi ayaa ugu dambeysay iyo sheekadii kale kasii horeysay. bal aragtidiina hoos inoogu soo gudbiya, midee idinkugu la yaab badneed, maxaad se adugu aragti ah oo inoo soo gudbin kartaa?